Assalaamu calaykum. Shirkadda Sony Effect oo aad ugu barateen inay soo saaraan waxyaalo ku saabsan tiknoolajiyadda ayaa waxay soo saartay Sony Hear-On oo ah dhago loogu talagalay in uu qofka ku dhageysto musiga, video, waxyaabaha muuqaalka ah. Dhagahan ayaa dhago kalra aad u fara badan leh, noocyo aad u fara badan oo aad ka heli karto nooca doonaysid. Dhagahan ayaa ah mid soo jiidasho leh, qofka wata ka dhigaysa effect qof saameysan codka kaliya uu leeyahay dartiisa. Qofka wata wuxuu ka dhigayaa qof isteelkiisa aad u qurux badan, qofkii ka hor imaanana uu la yaabi doono dhagaha quruxda uu leeyahay dartiisa. Dhagahan ayaa ku xun kaliya in lacagtiisa ay aad u fara badan tahay oo qofka uusan awoodi karin inuu dhagahan gato maadaama uu dhagaha uu yahay dhaga aad u qurux badan aad ay lacagta u badan oo ah $200 oo lacagta Mareykanka ah ilaa iyo 150 oo lacagta Euro-ga ah ayay lagu iibiyaa suuqyada caalamiga waaweyn. Haddaba dhagahani waxa shirkadda markasta ay lacagta si dhimaysa sababtoo ah markay challenge ay shirkadda ku jirtaa shirkado kale ay la tartamaysa lacagta marka maalin ka dambe waqti ka dambeeya lacagta dhagaha uu aad buu sii yaraanayaa. Dhagahani ayaa leh boorso ilaalinaya dhagahada ilaalinaya waa lagu keenaa boorso uu leeyahay wuxuu kale leeyahay xarigii cable-kii mobile-ka loo geli lahaa waa aad u qurux badan yahay waxaad u laabi kartaa nooca doonaysa ayaad u laabi kartaa. Dhagahana markaad taabanayso aad jilic u yahay markaad taabato waa jilic waa dhaga dhib baan oo ku dhiib kara maaha. Waxaa intaas sii dheer dhagaha inaad kala bixin karto oo madaxaada la ekay karto waad kala jiidaysaa laba dhinac ayaad qabanaysaa waad kala siibaysaa waxaad la ekaysiinaysaa madaxaada intuu la fac yahay waa dhaga cajiib ah runtii. sidoo kale qaybta dhagahana waad kala bixin kartaa oo waad dhinaca ay quluci kartaa kadib markii aad dhameysto dhagaha nacdo oo kale waxaad sameyn kartaa dhagihii waa isku soo laabi kartaa laba dhinac aad isku soo jiibi kartaa waa dhaga si loo sameeyo dhisaankiisu ay dhisaan aad u wanaagsan. dhagahan waa dhaga aad iyo aad u qurux badan dhaga ayuu ka jibinayaa aad qaliis haddaba u jeedaa samaacada waaweyn ayaa meesha ku xiran samaacada aad waaweyn waaye dhaga marka gashto nothing wax ma maqlaysid qofku wax ma maqlaysid waxyaabo waxay ku fiican tahay wog oodka kale marka gym sameynayso ama meel aad sameynayso kale waa inaad gashataa aad ku raaxaysataa dhagahan oo kale. dhagaha hadda qaybta dhaga la gelinaya daayata wato waa qayb aad jilic waxa lagu tala qof kaliya inuu ku raaxaysto lagu tala galay ma inuu ku dhigtooda inuu ku raaxaysto lagu tala galay shirkadda aad bay isu dadaashay. haddaba marka cable ku xiraysid waxaad tagaysaa qaybta midig ee dhegta ayaa qaybta kore ayaad gelinaysaa qaybta dheer oo xariga cable-ka ayaad gelinaysaa kadib mobile-ka ayaad ku xiriirinaysaa. haddaba marka meesha dhexe ayuu leeyahay oo control-ka ah oo meesha laga maamuli lahaa adigoo taabanaysid hal mar adigoo taabanaysid si codku u joogsado oo ka aragtaan codkii oo joogsanaya waa taabanaysaa mar labaad codkii wuu soconaya haddii aad doonayso marka in aad heestii ama wixii ku darnaa quraankii ku darnaa aad gudbiso double click ayaad ku sameynaysaa laba mar riixaysaa oo ujeeda uu gudbisana si aad ka aragtaan. haddaba dhagahan inaad ka heshaan u maleynaya waa dhago aad lacagtiisa u badan laakiin inuu soo jabay ayaan jid doonaa insha Allah inuu soo jabo waa 200 oo lacagta Mareykanka ah 150 oo lacagta Euro-ga ah waa lacag aad u weyn laakiin dhagta ayaa ka muhiimsan wax walba. waa maasatiin review-gan ama aan ku sameynayna Sony Hear-On oo soo saarta shirkadda Sony oo aad ku barateen waxyaabo badan tiknoolajiyada ay aad u sii horumarinayso shirkaddaasi. waa maasatiin please haddaad ka heshay subscribe channel-keena video like u share garaa asxaabtaada waa maasatiin. haddaba casharkan ayaa in soo jeedinayo waxaan soo jeedinayaa anigoo Cabdi Daahir waxaad kala socoteen shabakadaas groups.blogspot.com.